16 Maarso 2020 shan sano ka hor maanta oo kale waxaa dhacay mid ka mid ah hoos u dhacyadii ugu weynaa ee taariikhda suuqa maaliyadda. Cudurka COVID-19 coronavirus ayaa si weyn ugu faafay dunida, waxayna ahayd mid sababtay cabsidii ugu weyneed ee soo marta dhaqaalaha dunida. Isku socodka dunida, cirka iyo dhulkaba way istaageen. Ganacsigii caalamiga ah wuu istaagay, taasoo saameyn xoog leh ku yeelatay suuqyada maaliyadeed iyo kuwa kriptada. Maalgashadayaal badan ayaa galay xaalad cabsi ah, waxayna suuqyada bilaabeen hoos u dhac xawli ah. Bitcoin oo bishii Maarso bilowgeedii 2020 marayay 9,200 wuxuu hoos ugu dhacay wax ka yar $4,000. Ethereum wuxuu hoos ugu dhacay wax ka yar $100. Muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa insha Allah wixii dhacay cashirkii laga bartay 2020 iyo fursadaha hadda jiro 2025. Sidoo kale muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa suuqyada kriptada ay ku soo wajahan yihiin maalmo xasaasi ah. Maxaa dhici doono maalinta Arbacada 19 bisha Maarso 2025. Kusoo dhawaada saaxiib janaalka Horyaal Solution. Saaxiib muuqaalka like noo saar si meel dheer uu gaaro. Sidoo kale haddii aad ka mid ahayn asxaabta ku xiran Horyaal Solution, kusoo biir maantaba si aad ula socoto wax walba cusub aan soo dhigno. Mahadsanid. 16 Maarso 2020 maalin mugdi ah ayay u ahayd suuqyada. Maalgashadayaasha suuqyada saamiyada waxay bilaabeen inay iska iibiyaan saamigooda, waxaana dhacday in suuqa saamiyada Mareykanka laga waayay 2.69 trilyan hal maalin gudaheeda. Dad badan ayaa ka cabsaday in suuqyadu sii burburi doonaan, halka kuwa kale garowsadeen fursadda ay go'aansadeen in ay maalgashi sameeyaan. Dadka in yar ayaa fahmay in ay fursad qaali ah tahay hoos u dhaca suuqyada, ayna tahay in ay maalgashi hor leh ku sameeyaan iyagoo lacag kale geliyay, kuwaas oo helay faa'iido badan sanad iyo dhowr bilood ka bacdi. Kuwa maalgashiga sameeyay xilligii hoos u dhaca waxay heleen faa'iidooyin aad u badan. 2021 dhamaadkeedii November ilaa December, Bitcoin wuxuu gaaray wax ka badan 69,000, Ethereum wuxuu gaaray wax ka badan 4,200. Cashirkii laga bartay 2020, dadkii sabray suuqa markuu uu hoos u dhacay lahaana qorshaha maalgashiga dheer waxay heleen faa'iido weyn markuu suuqa kor u kac u sameeyay. Maalgashadayaasha caqliga badan waxay u rogeen jahwareerkii jiray 2020 fursad. Taariikhdu waxay mar walba na bartaa in suuqyada mar hoos u dhacaan kadibna ay dib ka kacaan. 2025 fursad kale ma lagu jiraa hadda waxaa jiro xaalad la mid ah tii 2020. hoos u dhicii dhawaan dhacay wuxuu cabsi geliyay dad badan, laakiin maalgashadayaashii caqliga badnaa way fahmeen. Bitcoin iyo crypto waxaa loo saadaalinayaa in ay sare u kici doonaan sanadkan 2025 iyo 2026 ay tahay fursad kale in ay noqon doonto insha Allah. Taariikhdu ma soo noqoto, laakiin way isu eg tahay. Fiiro gaar ah saaxiib, suuqa kriptada wuxuu leeyahay fursad aad lacag faa'iido ku heli karto maalgashigaaga. Sidoo kale wuxuu leeyahay halis aad ku weyn karto maalgashigaaga intiisa badan ama kulligiis. Ha filan suuqan kriptada in aad si degdeg ah uga taajirayso. Suuqa kriptada dhowr iyo 10 sano ayuu shaqaynayaa. Dadka intooda badan maalgasho suuqan 80% way ku khasaaraan. Sababta ma taqaanaa saaxiib? Haddii aadan lahayn qorshe in aad qaadato faa'iidada maalgashiga aad hesho, way adag tahay in aad suuqan lacag ka samayso. Suuqa kriptada ma jirto lacag weligeed kor iskaga soconayso. Waa inaad qorshe leedahay oo aad meel oga baxda. Xasuusnaaw saaxiib, kriptadu waa fursad weyn, laakiin guusha waxaa leh kuwa fahmayo xeerka ciyaarta ee suuqan. Bitcoin iyo kriptadu waxaa ku soo wajahan waqti xasaasi ah. Halka suuqa kriptada hoos u dhici ku yimid maalmo ka hor, weli kor u kac fiican ma sameynin. Falanqeeyaasha qaar waxay qabaan in suuqa uu hoos u dhici doono maalmaha soo socda. Bitcoin waxaa laga yaabaa inuu gaaro ilaa 70,000, kadibna halkaas uu ka soo bilaabo kor u kac ilaa uu ka gaaro ayaa la filayaa 150 ilaa 200,000. Maalinta Arbacadu waa maalin muhiim ah. 19 bisha Maarso 2025 waxaa dhici doono kulan guddiga Federal Reserve oo ah hay'ad dhexe ee maaliyadda Mareykanka oo maamusho siyaasadaha lacagta iyo dhaqaalaha Mareykanka, gaar ahaan go'aamada ku saabsan heerka faa'iidada interest rates, waxaana loo soo gaabiyaa Fed. Waxaa guddoomiye ka ah Jerome Powell. Kulankan waxaa la filayaa in Fed ay ku shaaciso go'aanka xiga ee interest rate-ka. Suuqyadu waxay si dhow ah u fiirin doonaan hadalka uu jeedin doono markii go'aanka uu soo baxay ka bacdi uu jeedin doono Jerome Powell si ay u ogaadaan
haddii ay Fed qorsheynayso in uu hoos u dhigo faa'iidada interest rate-ka, taasoo haddii ay dhacdo ay u tahay khabar aad iyo aad u fiican suuqa kriptada iyo suuqyada kale ee saamiyada. Laba, waxaa kaloo dhici karto in uu xajiyo heerka hadda ay joogto, waana mid loo badinayo hadda inay dhacdo midaas, waana mid suuqyada aan u fiicneen. Sidoo kaleento waxaa kaloo la fili karaa in uu sii wado adkeynta dhaqaalaha. Go'aankan ayaa isagana aan ahayn mid u fiican suuqyada. Gunaanad markaa, kulankan Fed waa mid muhiim ah, saameyn xooggan ku leh suuqyada kriptada iyo saamiyada. Haddii ay Fed muujiyaan in ay fududeyn doonaan siyaasadda lacagta, Bitcoin iyo suuqa kriptada waxay samayn doonaan kor u kac weyn ah. Laakiin haddii Jerome Powell uu muujiyo in Fed uusan ku degdegi doono in uu qaato aan hoos u dhigay interest rate-ka, suuqyadu waxay la kulmi karaan hoos u dhac weyn. Maalgashadayaashu waxay si dhow ula socon doonaan hadalka uu jeedin doono Jerome Powell si ay u go'aansadaan jihada xigta ee suuqan uu aadi doono. Muuqaalkan intaas ayuu nooga egaa saaxiib. Fikirkaaga saaxiib nagula wadaag qaybta commentiga. Maxaad is leedahay? Fursad kalaba ayaa is leedahay 2025 in la maalgashado waqti xaadirkan mise waa halis ayay tahay suuqa? Muuqaalkanna saaxiib like noo saar si meel dheer u gaaro. Sidoo kale haddaadan channel ka mid ahayn ku soo biir, subscribe saaro. Mahadsanid. Assalaamu calaykum, nabadgelyo saaxiib.